بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياش إذا شرفت له ميل والبا الدنيا دا كجوكتان iyo goor kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka aragtida qoraaga ee taxanaha inooga soo ahaa TV-gan Somali Channel oo adeega shacabka Soomaaliyeed daawadayaal waxaad horey nooga barateen in aan toddobaad walba idin keeno qoraa Soomaaliyeed iyo wixii uu qoray bulshada Soomaaliyeedna aan u soo bandhigno idinkuna aad nala wadaagtaan toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah qoraa Soomaaliyeed Cabdullaahi Bootaan oo ah qoraa in badan taariikhda Soomaaliya si weyn u darsay Cabdullaahi kusoo dhawow ما خلص عليه aad baan u mahadsantahay waana ku faraxsanahay Cabdullaahi inaan barnaamijka kugu casumo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida aad ii qadarisay Cabdullaahi oo barnaamijka soo dhawaanaya marka hore in yar bulshada Soomaaliyeed misbari kartaa والله وهو برشادو دخلي هرتا قف بس يبو ماركتي هو ده كوسو قلا أنا هو مقعي عبد الله هو إذا عاد مرده هو يموصدا يوحل إلى الصوحن يوحل إلى هذا مباشان مبادئ ناس بان قارن صوبان دي قارن الرواية أنا دخل صوبان ديو كواس بان الرواية أنا اللي هو برتو وحكى هذا عن فرديا مشيران daawadayaal Cabdullaahi waa qoraa waxa uu qoraa in badan oo kamid ah taariikhda khaasatan meelo badan oo aan maanta halkan ku falanqeyn doono hadii Ilaahay idmo ayuu wax ka qoray oo wax ka fiiriyay sidoo kale waxa uu qoray oo soo saaray waliba sheekada la yiraahdo qoys dumay oo sheeko aad u xiiso badan oo gabaya aad u macaan ay ku jiraan sidoo kale waxaad maqashaan warjiraaba cakaara ayuu imaan waa warjiraaba cakaara ayuu imaan waa macnaha hal hays jira loona baahaya in badan laga barto sidoo kale waxaad maqasheen qof walba wixii uu qabo qarra ayuu la imaan waa hal hays jira oo looga baahan yahay qof walba in uu wax ka barto annaguna iskuma ana mashquulin dadka Soomaaliyeed hadaan nahay inta badan iskuma isa mashquulin inay wax ka barto sidoo kale waxaad maqashaan war dheer oo ah laba eray oo isku dhajiyo macna dheer leh toddobaadkan hadii Ilaahay idmo Cabdullaahi ayaa in badan naga bari doona idinka ayaana idin soo gudbin doona hadii Ilaahay idmo insha Allah waxaan rajaynayaa daqiiqadaha u dambeeyay inaan laba saddex qof wixii aan ka gaari karo aan qadka telefoonka idin furo Cabdullaahi adoo mahadsan oo barnaamijka markale ku soo dhawaanaya marka hore bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan ka hadlaynaa idaacadda marada huwan barnaamij ay leedahay mid kamid ah oo aad luqadda iyo afka Soomaaliga iyo sidii waagi hore dadka Soomaaliyeed warka isku gaarsiin jiray oo aad adigu tiraahid waxa jira idaacada waxaan lahayn FM ah iyo kuwa gobolla ah iyo mid weyn baan ahayn idaacadahaas oo idaacadda marada huwan aas macnaha sida ay macnaha wax ka jirto ay tahay oo aad ujeedka ka leedahay in dadka wax ku badhay baa inaan hadii Ilaahay maanta wax ka waraysto marka ka horse dadka Soomaaliyeed sidii ay u noolaayeen gabay abaad sameysay oo dadka Soomaaliyeed gumistahan waxaan ka hor imid dad jiro oo haybad iyo sharaf iyo karaamo leh ay ahaayeen oo noolaayeen marka gabaygaas migu bilaabi kartaa damaas oo ku bilaabaya waxa weeyaan Soomaali weyntii Ilaah siiyay saacido looga soo caduul kale sawdkii dhawaaqiyo suurad qura ku kulanto الله إنه سرّيو سكية هاي ميد واحدة سيدا صدق رئيسو صوباني وصودري صلى الله محمد كسر لذا مر وليو صورتها قرآن كي صحيحين كبرتو سني وذا شافعي شنطة صوف قميس يقول سمدها أكلا دقي وسي أنا سوء من مد بس مجا صحيح واهر أبو النذا كسوجنو سجودي سجارة بس لي كلام فري وصير أنا إلى تاي وصدر مهم وقفوا صابكم مرن هاي يمد سبيه مويه دتك بدن كسوجين يصير قوايا أرجع قويها سريوس أشيد واحد هاي أنت عند دولة صابحين أن على الله صاصرين رئيس عبالوت من سان عديه قميس يقول سوقلين دول كانوا فرنسيسي سانتيو سواحل جبورتي أنا محار لإيسورين أنت صرت الله يجرين سيدي 7 لإيقورين سريع حدود جرين وإجا سؤاله هرت سيونالين وماشي كسب بالله وتشكل إذا عدني وانقرت مركرت إذا عدى وشكل ودرته وحنا جعلها مركز ضمبي أو مركز ضمبي إلى سوق الدنيا عدو أقونس عالمية شيء سنة كي 2011 كي وانقرت وقبل إما اللي هذا هو اسمه باريتان بريتش لايبرري قال لقيه waxay ku qaadatay award winner 2011 idaacada Soomaaliyeed la yiraahdo oo idaacada waxa weeyaan inay wali shaqeyso way aqbareen waan soo bandhigi doonaa kulli information waa ku soo gudbiyay laakiin waa la soo bandhigi doonaa bandhig weyn bay u baahan tahay hadii Ilaahay aqoonsigaas in Soomaaliya ogaatay in idaacadeeda la aqoonsado laakiin idaacada kulli hadaan waqti haduu yar yahay anu sidoo horta idaacada waraysataan dadka halka ka booba marka dadda su'aal weydiin lahayd yadaan idaacada shirkada gilaa adii maartay ma idaacada in yar oo kooban oo igu sharax waxa weey horta
idaacaddu marna waa midaan hadda sida aan u isticmaalna markii halkan aan nimid oo magacaan aan u bixino marahuwan iyo safaast waxa ka dambeeya in la fahmo midna waa midii hore waxaan u maleynayaa midda maanta iyo gabadhan awoodka ku heshay mar kale ka dhigana iyo shaqadii halkan ka qabatay iyo sidii ku bilaabatay laakiin midda hore waxa weeyaan waxyaaba dadku maahan mad ilaahay abuurtay baan soo jirtay ma ana soo sarfadaan hab aan u noolnahay aanay jirin de ma ana soo gaarnay qarnigii hadda u dambeeyay ba taariikhdii laga soo bilaabaa de taas ma taariikhdeedu ilaa nabi aadan baan soo taxanay ma jirta ay moogtay war dheer marka aad maqasho maxaa kugu soo dhacaya war dheer waxa igu soo dhacaysa markii aan maqlo magaalo weyn oo magac dheer leh waxa weeye eray magaalo macno sameynaya weeyaan warna waa news dheerna waa meel fog war dheer marka maxay tahay hadda war dheer buqcad baa la yiraahdaa moogta dhulka Soomaaliya kamid ah maxay tahay war dheer dhulka Soomaali National Origin inta go'ayso imaanin waxay dhacdaa meesha dhaxaysa centerka waa meesha qabaa'ilada Soomaalida kuwada waaweyn qaarna ay daris ka yihiin qaarna iska soo gaaraan oo midkan daris la mid kale dhabar ku hayo waa meesha Soomaali waxay haysatay wixii ugu qiimo badnaa marka xoolaha ahaa ay ku dhaqmi jireen oo daaqsinka iyo miciisiga lahayd iyo biyaha iyo miciisiga waa meel xeebaha ka soo fog oo dad aan soo ilaa xeebaha dad kala soo degaa dad baa yimaada waxba isbuugsay waa meel xeebaha ka soo fog oo dadkii Soomaalidii deegaanka degaloo pure-ka meesha degan waa soo ahayd way waa meesha mid walba xadaarad deelada waa meesha xadaarad Soomaalidu ay ka xaraqaad suugaanta hadallada miciisiga muhiimadda iyo istaraatiiji ay lahayd waxaad garanaysaa gumaysiga dalka yimid oo dhan Ingiriiska iyo Talyaaniga meesha isaga hor yimaadeen ku direen waa dheer walwal incident aad maqashay oo Talyaaniga iyo Xabashida walwalbu ka dhacay waa dheer qarkeed agteeda weeyaan maxaa yaalay maxay mid waliba istaraatiiji u soo aaday maxay tahay centerka waa caasimadii Soomaaliya way Soomaali nation dadka ah caasimadoodii way waa dadka ilaa maantay 200 sano 200 ku dhawaad sanaday waxay ku administration maamulka Ethiopia ka tirsantahay dadku xabash ma yaqaan wali waa Soomaali af Soomaali hatta Carabiga kama khaldana wali sidoodii bay yihiin dadka intaas oo sanadka joogay war dheer markay halkaas waxa kaaga soo baxaya ninkii Richard Burton buugi u qoray laba wiil oo gaarisa agteeda geel ku horay wareystay oo yar ah su'aal weydiiyay geel uu ka weydiiyay arigu ka weydiiyay Soomaalnimadu ka weydiiyay wax walba weydiiyay wuu tagay hadana dirba baadiyeeda kuwa joogu wareystay isku sidii ugu jawaabeen wuxuu yiri dadkan dawlad xana aan lahayn maxaan ku raadayay manhaj waxbarasho kulmiyaana jirin maxaan ku idaacad kulmiyaana jirin ee isku waxa yaqaan carruurtooda taqaana maxay waxa shaqeynaysay idaacadan war dheer ba shaqeynaysay idaacadani war dheer marka macnaha idaacada ilaa markii dadka hadda Soomaaliyeed idaacad waxay yaqaanaa sida tan hadda aan ka hadlayno ama BBC da waxa soo kale laakiin macnaha markaas idaacadu si ma ugu fasiri kartaa dadka jilicsan oo ay fahmi karaan idaacadu waa habka horta wax kasta waa communication adduunka taa idaacadahu soo bixin idaacadu walba communication ka hadal oral baa lagu gaarsiin jiray markii dambe quraal baa lagu gaarsiin jiray laakiin dadka Soomaalida suugaanta iyo fariimaha iyo waxaas aad loo isticmaali jiray oo lagu diri jiray fariimaha waxa weeyaan hadaad fiiriso waxa weeye Soomaalidu FM bay ka bilaabatay idaacadeeda tuulooyinka aniga soo gaaray anu tuulo Oomaad leeyahay marka yara joogi jiro balweyne agteeda ninkan maalinka Soomaaliya oo xilkasa oo aan geed ka imaanin marka tuulada soo galayo waa nin aan gabadhiisu ku raayn waxaana xil qaadi kara way intuu soo socdo tuulada u soo socdana waa inuu fiiriyo raadka xataa neef xagga u gudbay qofku arkay waa inuu wareysta waa inuu war keenaa geedkan waa inuu tagaa oo wixii war yaala dhinac walba lagu yimi Soomaal geedka dhow waxa jira hab warka loo tabiyo asagu waxa la leeyahay war sheegay baa leeyahay ana war sheegay asoo tartiib u hadlaya markaasuu leeyahay ana war sheegay buu leeyahay kaasi waa tabiye asoo waa warinaya kana waa tabinaya dadku waa dhigsanaya 67 qof ee maalinka tuulada yimid wax kasta oo soonaha ka dhacay way og yihiin bal midalan ninkan markuu baadiyi soo maray oo soo lugeyniyo magaalo kale ama baadiyi ka yimid wuxuu soo arkay raad buu soo arkay soo wareysay war buu wadaa geedkii oo gala amarku yimaadana markii la wariyaa war arkay ana war arkay bile maxaad soo aragtay nin baa taagan oo wixii weydiinaya waxaas baan soo arkay waxaas saas dhahaya miya warka dhan waa la sheer gareynaya hadhow markii galabtii la axraabayo
wax kasta oo area-da ka dhacay waa la ogyahay qof kasta dhinacaad u carrawdo neefkaagii waa lagu sheegaya area kasta aad jirto wax kasta oo dhacay newska marka saas u baxaya taas waxaan ka waxay FM waa FM-kii idaacadaha marka regional gobolada ma jireen wey waa jireen صح وحقيقة نجرين وحكم إذا عكارو عكارو ريجنال راديو بعد وقبل إذا هذا قبل كأي مال حرم ورك الله وحوي عكارو قبل كسنة ملك تالوالي هذا لنا عن خبيه والغو شيء دون بركة بحجة والي هذا كل كشان والغو شيء أدو سكوا ضدو أنا تولد عكارو وابرك بركة سنة كتالة مكتب لكن ملك استغان قلت لكن أنا أهيد مال سومالي كتالة وإذا عد شكل ملتاس ورجلا عكارو إيمان warkii efamyada aan ka baxsan cakaara laga doonay marka dhinacaan waqooyiga u daa marka in cakaaro sabalagreenis dhinacaan bariga qardha sabalagreenis qof waliba wuxuu qabo qardhu la iman qardha marka bari oo dhan meesha warka siisa bay ahayd dhinacaan webiga hadda aado waxa jirta ilaa iyo waalid heesta carruurta ka garaysa maqalay waray ma lagu waramo in cali la dilay oo umar la dilay oo wadii qulqul yaa ii waramay ma walaalkay baa webi hoose iyo waalidkay marka waalid waa isha warka oo warba laga soo helayaa isha warka laga helo xagee warka helo war ma heli karo yaa waalidkii waalid marka waa meesha newska warka uga imaanayo ogow waxa soo dhan xagee ayuu warka qaataan marka waa war dheer kii dirada ka yimid warka si la soo gudbinayo hadaad war dheer tagto war meel dheer ka yimid baad helaysaa ama war meel dheer baad geenaysaa والله شرقنا يا مركب وردير وحي حرن واحد satellite way baa warka laga soo qaado gado iyo kambari laga soo qaado meelaha kale Soomaalida ilaa adiga kala dhimana waa kula joognaa inaan lahaa insha Allah waxaan filayaa in aan soo bandhigi doono hababka kala jira idaacadan ma Soomaalida un bay warka heli jirtay warta mise meelo kale warka heli jirtay su'aalaha imaanay ogta okay dariska wadamada qoomiyadaha kale warkooda waa heli jirtay sax way habkan waxa la adeegsan jiray la yiraahdo gambada صح war markii la waayo wacaala la raadin jiray صح wacaala waa rumors waa xasuusta qamaar صح waxa ku xiga waxa weeyaan jada bilaf inta la gaar may gambadu maxay tahay waa sarbeeb laba qoom oo kasto darisa waxa caadiyan ah in ay kala guursadaan ama gabar xagga ka soo gasho ama gabar xagga ka gasho marka gambadani waxa la leeyahay marka war kale la waayo war gambadii maxay sheegtay waa gamba halka joogta ama gamba xagga joogta waa dumarkii maxaa laga helay habkay adeegsanayaan waa ku tiri ku teen waa ku tiri waa dhadig midani halka joogta walaftigeedu waa ku tiri waxbay laftigeedu gudbinaysaa iska joogto midda xagga joogta waa soo gudbinaysaa Oromo iyo Soomaali ha noqoto ama Oromo kala ha noqoto waa ku tiri ku teen habka la adeegsanaya waan gartay runtii waxaan filayaa in si weyn looga dhargay madaxa shoodana waxa la adeegsanayo jada balaf marka jada balaftu waa labadu waa sound waa aragta waa dabayl qof geed baa Soomaalida garabdaar baan leeyahay qof baa geed fuulay jawaq baan maqlay soo xamash hada saynis ku hadwa bacdi hadalku ma dhinto kor buu tagaa hadalka marka la hadlo hadalku dushan buu ku xariisan yahay qof baa wuxuu sheegay wax cid la ogeysan jiray meel uu ka helay وجدها بلا وهوي دكتي كga soo dhacday cid u sheegtay ma geed uu saarayo warka iglan ka dhacay kaaga waramaya marka de hab kale ku heli karaa ma jirto signal ka jadda balafta ya yu ku qaadanaya waan gartay dabcan halka waxa ka cad in dadka Soomaaliyeed bariga hore ay warka si dhib yar ku kala heli jireen ayagoo aan aalad iyo satellite mid isticmaalin in qof walba oo magaalada imaanaya baadiyaha ka imaanaya inuu warka soo xuraami jiray kadibna uu geedka imaan jiray geedkan uu ka sii tabin jiray warka taasuna ay ahayd mid local ah kadibna loo sii gudbi jiray cakaara iyo qardhi meelaha la midka ah kadibna wardheer oo kalena ay ahayd meel weyn oo wadamo gobollo badan ay warka ka kala qaadan jireen hada waxa halka kaga cad inaan ahayn dad in badan soo jiray dabcan baaritaan dheer oo qodo dheer been u baahan yihiin waan filayaa in aan anaguna insha Allah kaalinteeda ka qaadan doonaa dadaal dadka Soomaaliyeedna waa ay u furanta in taariikhda Soomaaliyeed ee dahsoon ee aan wali banaanka la soo dhigin banaanka la soo dhigo si aan wax uga barano qofkii aan taariikhdiisa baran wax badan banaanka ma soo dhigi karo waxaan u gudbayaa qaybta saxaafadda maadaama aad in badan arrimaha ku soo jirtay qaybta saxaafadda barihiina dambe waxaan lagu xantaa qayb dadkayga saxaafadda inaan dad aan profession aad aan ahayn dad luqadda ka dhisan aan ahayn kaliya inaan dad iska soo boodaan nahay marka
waxaad iga warantaa erayabaad ii sheegtay inaa aroortisay ilaa iyo adigu 180 eray inaad qordhay laakiin hadda 10 eray camal aad leedahay macquul waxay tahay in maartay dadkana waxbay ka bedeli kartaa bal maxmiga taaban kartaa kuwa waxa u maleynayaa 10kii inaan ka wada gaara 5 ka dhiganaa roon goostaan in yaraada ka baqaya horta saxaafadu ama warbaahintu waa aad wax muhiim ah waana uga mahad celinaya ruuxaan ragga maal geliyay oo de naga kafaalo qaaday barnaamijka dambe ku sheegi doonaa idaacada marada weyn aniga halkan aan ka hadlaynay waxaanu shaqaynaynay 10kii sano oo idaacadu aanay jirin baan anigu human radio mutqa dad radio qof ah saas kala shaqaynay marka dad timaadeen alxamdulillah rabbil alamin xilkina waa u banayn laakiin waa macalinka guud idaacadu macalinka guudna waxa weeyaan waa khatar wuxuu baahan yahay in la ilaaliyo way hal erayo ka fakada macalinku qolkan ku jira 20 arday buu wax ka khaldi karaa laakiin mujtamac oo dhan buu wax ka khaldi karaa waxa la rabaa wadaadka wax ka akhrinaya macalinka ka akhrinaya in hab TV loo tababaro inuu ama radio wax ka sheegay maxaan ku yiraahdaa qof kasta oo halkan wax ka soo jeedinaya ama macalinka caadiga wax ka dhigaya macallimiinta la midna waa in habkaas u tababaran yahay oo waxa weeyaan khatartaas la ilaaliyaa waxa weeyaan marka erayada hadda la isticmaalo laba qaybood baan kala qaybiyay ama saddex kuwa meeshoodii kuma jiraan waa sax oo la isticmaali karaa laakiin bosish meeshii ay lahayd bun eraygu ku jiray kuwana waa bilcagsi waa ka soo horjeedaa kuwana macnahoodii macno aan ahayn oo kale baa loo isticmaalaa marka kaba soo qaad hadda dhulka Soomaalidu degto baa lagu leeyahay Kenya dhulka Soomaalidu degto Ethiopia hadda jamhuuriyadda bay u isticmaalaan dhulka Soomaalidu ma degto waa dhulka gobolka Soomaalida Ethiopia weey gobolka Soomaalidu cid iska waa Soomaali sax weey waa wardheertan ka hadlayna weey waa dhulka Soomaalida Ethiopia ama gobolka Soomaalida dheedarabti sax weey ma degto balse isli oo kale waa dhigi karaa xaafadda Soomaalidu degto ama Camden ama meesha rabto waa degtaa Soomaalidu laakiin ma haleeha waa era dhigi karo laakiin dhulkii dadkii lahaa Ilaahay ku abuuray baa degan erga marka wuxuu micna guurinaya marka tiraahdo dadka Soomaalidu degto waxa la mid noqonaysa London xaafadda Soomaalidu degto kale ee yiri marka Soomaalida oo dhulka lahayd buu micna guurinaya Soomaaliya waa kamid ah dadka af Soomaaliga ku hadla dadka af Soomaaliga ku hadla xagee macna ku leedahay dadka af Soomaaliga ku hadla waa Soomaali sida Faransiiska iyo Ingiriiska kale Yemeni dadka badan dadkii u dhashay baa ku hadla erayadaas waa loo adeegsadaa ayaga Soomaali weey waxa dadka Soomaaliga ku hadla dadka waxa weey jooga Djibouti waa Soomaali waa Anfar waa Arab marka dadka waxa iska waa Soomaali marka dadka laakiin wadankooda waa iska qalad dadkii Soomaaliya iyo Soomaaliya waa wadan sax laakiin Soomaaliya marka la yiraahdo waa qofkaas wuxuu noqon karaa Kenya national waxaysan karaa sax waa dadka ka hadleen sax هذا قف إثيوبيا اللي أميرتها هذه الهادي ولا صوتها بكرة إثيوبيا أما هو أورومو أما هو صومالي أما هو أمحار أما هو تكري صحوي مركز ضدك هو الصومالي صح ما ضدك الصومالي ما هضلان ضدك هو الصومالي صحيح وهو مركز يعني معنيه لقى قادنو ضدك هو الصومالي لكن وضم ما كان كل دوم من أخرى ضدك الصومالي كهضلا مجهول ضدك الصومالي كهضلا معي برسنتج مغيري ضدك أنا الصومالي أنا الصومالي كهضلا لا بس طبعا محمد دم مركز ضدك الصومالي ضدك هو الصومالي dadka laakiin wadamada kala duwan karaan sax weey dadka Soomaaliya ku hadla waxa kamid ah marwada koowaad waa direct translation bal sameeyay sax oo first lady oo Mareykanka Ingiriiska first lady kama jirto prime minister wife way mugto sax waxa weey marka anaga Soomaaliya markii first lady qofkii la turjumo waa marwada madaxweynaha waan garta marwada madaxweynaha maxay marka Soomaaliya waligeed la oran jiray marwada madaxweynaha way marka marwada koowaad numberkaas laga dhigay anigu hadda ma dhow website waxaan ku arkay marwada labaad markaas interest ku noqday war maxay tahay marwada labaad waa si dabagal waa fi marwada labaad waxa ay guura ku soo gashay meel waa si akhri waa yaab nin madaxweyne ku xigeenay ka hadlayaan xaaskiisi fiir meesha la sii marsiinay marwada labaad waa marwada madaxweyne ku xigeenka ugu haddii xataa ay laba yihiin hebel magaceedu baa la raacinaya ama saddex yihiin waxay yihiin waxa la raacinaya hebel marwada madaxweyne waa enough waa eraygii saxda ahaa Soomaaliga hadii de la turjumay eray de waa dhibaato waxa kamid ah wadan walba identity wuxuu wax u ilaashadu leeyahay hada Jarmalka iyo Faransiiska ka soo qaad Almaaniya u yaqaana Ilaahay baan isku meel ku abuuray waligiisa aliis asagoo Deutschland buu yaqaana muuki u yaqaan ugu yeero asaga magac ula baxay ugu Hindiya Mareykanku Ingiriisku muxuu baxshay Mumbai
Bombay buu bash magaalada Mumbai baa la waad waqti uu ka fariistay Hindi baarlamaanka Hindiya magacooda u yaqaano dhawaaqooda aha saankooda waa iyaga la baxay Mumbai oo la baxay marka waxa Soomaalidu waxay ku raacayeen marka waxa jirta luqad dadku yaqaan luqad marka dadku yaqaano yaan la dhuminin baad leedahay yaan la dhuminin wadan walba aadintu wuxuu leeyahay wax uu leeyahay uu ilaashado afkuna waa waxa ugu weyn oo la ilaashado for example anagu Ethiopia ma naqaan markaad Ingiriis ku sheegayso Ethiopia de af Soomaali waa Ethiopia Egypt maxay tahay anagu Ingiriis baa ku sheeganaa wax habarta ariga la joogta inay idaacadaada fahantaa la rabo waa inaad communication sameeyay moogta Masar Qaahira ya Cairo adaa Syria Damascus Jordan adaa tiraahdo yaa ku fahmaya dadka afkaan la magacay waa hore la baxeen Talyaani baa la Italy ma anaga America ma naqaan Mareykan way magacu sida Soomaali u yaqaano marka waxa leedahay dadka wariyaasha marka warka akhrinaya warkaas in laga مثلا ninka wariyaha waxa laga yaabaa inuu dhaho magaalada wadanka Egypt oo kale inuu dhaho marka meeshii uu ka dhilaa wadanka Egypt oo kale asaga warkii sheegayo kale si dadkii oo dhan ay u fahmaan haduu yiraahdo wadanka Masar oo kale si dib yar baa lagu fahmay Soomaali warka waxa ku sheegaysaa waa Soomaali aduu Ingiriis dad ku sheegaysaa horta hadda Ingiriis ku sheegaysaa ku hadda Egypt iyo waxa dhig afkaas u yaqaana moogtay dee ku sheegay markaas laakiin Soomaali waad ku waramaysaa waxa igu daraa tirsiga liyaa 3.9 milyan oo kale anigu tirikoobka Puntland ma aanaysanay waa yaab 3.9 milyan the communication way dadku iskool ma wada dhigan 3.9 milyan afka Ingiriisiga hadii af Soomaali lagu sheegayo de waa 3 milyan 900 1.5 adaa tirado 1.5 milyan de war ma 1.5 milyan war baad sheegaysaa ila fahmaan la ramoogta de waa milyan ya bar waxa la rabaa qofka aan iskool galin inuu fahmo wixii وإن قفك إذا عدل الدقيقة ما تدونه هذي أريج ولا تسوي أريج سوي راديو ولا يسنيه سيبوا كوك قرن يا سدح دبي 9 مليون 9 كم مليون ضم مقبضانية سدح هذا ومسك توري 9 كم مليون والله يستعمل وين قلت واحد يستا أريج أبوان ترى هذا حلقة قاضي نحكي ولا ما أبوان ما نقدر ولا يحلم ما هني إير نقطع أبوان ما نقدر ولا يحلم ما هني أبوان ما يفصل الله مرسينه هي ماش وكيين توحش أمة مدحوين هذا متقنا أظن ما سوق عريم بلغة أنا واحد سوق عريم مدحوين كريتشرو وضف مركب مدحوين اللي هذا استنى أول فهمي بدومية دقمة شرو بدومية قبل شرو ما أنت قفك خان قاري لقد حد إنكريم ماي مدحوينه وحلين أبوانكو مدحوين مركب مقصد كيوي يكون سهل ومدحوين واركي مدولو كيا مدقمها في كيا مدولدو كيا وهو كيا أنا يا هرا واي أيوة صدحة باي والصومالي تشل إذا أدا والله وشيء واحد إلى ور واحد أتوصل واحد وصعد مدحوين ليش المشرين مركز الصومالي صدحة ما بعرف شيء واحد توينا ربحن لا تكاكو ما مقبل هذه الحس سوي حلوة كلا كرتو لا ديدي وتصدق أنت وحلا مال أبوان مركز هذا بصونه أبوان هرتا ما أنت سيد الله يقام بالله يقانا أمال ما وحوي كبدل كرو لكن أنا وحير كيفتي منه أبوان وكما أبوان ضد وحوي يقانا قفكي وحتريه حق السوق عند هالأبور أبوان مركز الله الله يكون بالسر وقصب معها إنه وحتريه شروطه كلا جرو الله يرو أفك إنجليزي وايس ما وانين بالعار أبوان وانين حقير حين وانين نبضات وانين حلكسة وانين تاريخ إنجليزي بيدي أمتقان ديوان كوين وحلا بارتو يا ونن ريفرنس لو نقول وان ادون كليا ان اخر حتى لا بارو واحد الدنيا واحد اخره هو بوق وين وقف او ميل يالا او ديوانا او غراشره او اقو غبيا وان نقول كلام marka hada wadaadnimo gabyaahi bishardi inuu miyay noqonaysa la yiraahdo waa wadaad oo gabay u tiriya wadaad gabyaa waa tiriya horta laakiin wadaadnimadii aad ku wala faa inuu qotal raba oo sheekh tahay waa jiri kara abwaan gabyaa marka وأبوان نمديسي كسو قدبية لكن خصب معها أبوانكو إنه حلول نقضو قبياغا لفتي يسال لسكو هستا قبياغا وعكوما قبياغا واقور هذا اللي حين يكون ريا بارتو سو أروني على أروحات بارتاي لين ما بقول قبياغا بقول هنسي اللي بقول قاري بقول لين ما اللي حين كما بذكرها واحد عرفتو الصومالي هالأبور وشوغا واقي هوري واحد قبياغا كواليفيكيشن كيسال لسي شهادة كوبياغا نيكا قبي تريد قبي أنت قد وجدت ولا سقطة شيف تاجرت ما ساجرت جرار باجر وحول باجر وحصل قبل نكاس قبيا قبيت كوا كان ضد راتي نكاس قبيا الأوريج نكاس الدرجة ولا حمرك هل كاس جرادة وحرة وأنت كلو كتم بوري أو وحل وها دايلوج مجرى لا بقى بيقولوا ما سيسوتري سي كوا هذا شيء مجرى مثل
suugaantii taalayna waagaas oo goloka fuulka ahayd oo jiiftada ahayd oo nooc walba ahayd caqligaagu ma keeni karo misal reference looga qaadanayn inta laga daba tagay gabyaagii oo cagta la mariyay oo la baabiyay oo laga daba tagay abwaankii oo cagta la mariyay yaa hadda abwaan anu nin baa jira gabaygiisa inaan sheego ma jeceli laakiin dadka Soomaali badan baa taqaan waxa ninka gabaygiisa ku jirta sidii laan hareeriyo way ninkaasi gabaygu inta tiriyay buu waalidkii wax kaga sheegay isla markii waa dhintaa leeyahay markii dadku ila fahmi waayeen waxa yiraahdaa nin abwaan ah wuxuu yiri gabaygaas markaas yiraahdaan war abwaan maaha kaasi marka way fahmayaan in abwaanka wax garashada iyo aqliga iyo miisaanka la socdo uu yahay war ka gabi abwaan hadhiin midda kale abwaanku wax amaan ah loo isku amaano title la baxsho weeye laakiin adu ma samaysan kartid abwaan baan ahay qof oran kara ma jiro tu meel soo istaago hadda waa nin riis nuugtay because waa amaan abwaannimadu waa wax dadku ay ku siiyaan dadka walaal waa abwaan qofkani hatta marka qof u bogto wallahi hebel waa abwaan baad leedahay mugto marka abwaannimadii saas ahayd hadda intaan soo fariistay ana abwaana hadda waxaan qoray ana fiican nin is amaanay marka abwaanka waxa detailkiisa rasmiga ah iyo faahfaahintiisa mar dhan inaan ka hadalno oo soo qaadano abwaano Soomaalidu ay taqaano oo aan gabi jirin oo la isla qirsan yahay waan gartay saaxiibayaal dabcan saxaafadu waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo bulshada wax gaarsiisa qaasatan TV-yada waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee dadku wax ka qaataan dadka saxafiyiinta ah mustali erayada ay isticmaalaan waxa sii baranaya oo isku dayaya in ay macalinka sii dhigtaan billions ama saxaafad noqon lahaa oo soo baxaya ama in kale oo luqada barayso waa meesha luqada dadku iska gaaro oo urugta luqada marka waxaan soo jeedin lahaa in dadka Soomaaliyeed ee saxaafada ku jira erayada ay isticmaalayaan ay xuriyan u ogaadaan in eraygan eray wax gudbin kara yahay mardow hadii ilaahay idmo waxaan idin furiyaa qadka telefoonka hadii ay jirto cid su'aal ama laba na soo weydiin doonto hadii ilaahay idmo Cabdullaahi kamid rigidoona hadii ilaahay barnaamijyo kale ayaan idin ka sameeynaa waana idin soo deyn doonaa hadii ilaahay idmo balse mardow qadka telefoonka ayaan idin furayaa laba saddex qof cidii ka gaari karto halo assalaamu calaykum waan ka xumahay qofkaas qadka telefoonka ayaa ka go'ay waa soo noqonaya hadii ilaahay idmo Cabdullaahi erayadii hadda markii dhaweyd aan ka hadlaynay oo ahaa afwareen ayadii mahmahyo waxa tiri si khaldan loo isticmaala jira mahmahyo si khaldan loo isticmaalay ayagana jira baatay mahmaho kuwa waxa jira la nasakhay wala nasakhay soo mujiro ayad qasmasna waxa kamid ah nin la furay fadhi naag la furay fadhi umaya de halka ka shaqeynayso nin wax furay fadhi umaya hadda isbedeshay waa nasakhanta waa laga dabayay dhinac kala ninkii hooyadii guursaa waa adeerkii Soomaaliya tirada ma jirto carruurtu waa adeer mataqaan muxuu abti weeye moogta marka macna uma sameynayso halka markay joogto macna male ninkii hooyadii guursaa waa abti in lagu bedelo weeye maamaada laga dhigaa way adeerba lama yaqaanaba way ingiriiska waa ankal ciyaalku ankal ka uma barteen moogta waxa weeyaan erayada aan ka hadlaynay horta marba toban ka hadli doonaa 182 eray laakiin qaar ba khatar ah qaar khatar ma qaar wuxuu baahan xoogaa liiraad eraygan baa kaga haboon waa laba ero isku macna dhow laakiin waayo meeshu ka saaraya haddaan hadda la qabanin kii meesha ku haboonaa yaa dhimanaya marka khatartiisu ma badna kuwana waa danger haddaaban laga hortigin halis baybana gelin karaan waxaa ka mid ah anduco erayga anduco very dangerous qadka telefoonka qof ku jira oo ku soo noqday Cabdullaahi Maasan hallo assalaamu calaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid وعليكم السلام ورحمة الله. هلا. هاولا له. كسودو برنامج كم جاء جاي ماشي كساديس. ولا قلت ماذا عقوا عمر دار واحد كسر الله يودك الزمان. واحد ربع سؤال هنا ويجيه عبد الله. كذا أبويا تبعيش فضيه. هي ولا اللي هو أساس ما دام هذه زي واحد أحد أبويا. ما لديه كلا واحد أحد مؤلف. أبسل وصحوي ما وهل أبور وهوي وما حسنت عمر آدي هذا ما حسنت وهل أبور ومؤلف وهو يعني ذلك محكور هذا وحورية وهل أبور وأنا اللي جريت وايد هربا قفكر وهل أبور قبيا باجي مركا قبيا وأنيك قبي تري هذا لكن وحي وحتري له وقبيا سبارة ولكن وعلى غير وكلي الأقرب برامبر ككولي برامبر كله ما أوكي برامبر فيري لا يكون يقول
waraada aan ku weydiiyo waxaa dhahday maxaan ku dhahaa ninka meesha soo fariisto amba bulshadu ay taqaano abwaannimo sheegto waxaa dhahday waa nin isfaaninayo marka taasi meeshan ahayd liiho fikrad lagu wanaagsan yahay saaxib inaad saas maya saaxib waa mahadsan tahay walaalkay aad u mahadsan tahay macnaha muhiimaddu waxay tahay oo hadda cabdullaahi ka hadlaya waxay ahayd qofka abwaanka ah waa qof masxaf ah masxaf macnaha meel lagu kaydiyo taariikhda nin walba oo abwaanku waxa uu ka turjumayaa bilmatalan gabay baa sayid maxamed cabdulle tiriyey ama rag kale oo lamid ah ay tiriyeen sayid maxamed lagama soo warin oo sidiisii cid uga soo warisay hadda ma joogto laakiin waxaa laga soo wariyey qof gabaygii xifdiyey oo haya qof baa maahmaah yiri waxaa laga soo wariyey dad xifdiyey oo haya nin baa halhays macquul ah ka tegay taariikh baa maalin dhacday maalin baa arrin meel ka dhacday ama shil baa dhacay ama dagaal baa dhacay waxaasoo dhan buu hayaa ninka abwaanka ah oo dadka uga sheekeeya ninkaas wey ninka abwaanka hal mid aan gabeela ku weydiiyo maya anaga ay jawaab wax yar hal mid waa ku wan shakrisi maxaan ku dhahaa ninka ladhaho sangugo kale ninka ladhaho xagdaaniyo kale waa rag mualifiina waa abwaaniin taasi ma ku diidanaad waa mahadsantahay walaalkii abwaaniin waaye aad baa umahadsan tahay waxaan siinaya haddii qof kale oo khadka maya aniga horta wax yar u sheego waxa weeyaan kamaana hadleen anagu waxaan ka hadlay ereyga originkiisa sax wey dadka abwaana ragga u sheegay waa abwaano wey sax wey shakhsiyaad kamaana hadleen waxaan ka hadalnay okay raggaas haddii abwaano yihiin oo abwaannimadii saasay ahayd ninka wiilka inta soo fadhiista saddexda xaraf tiriya ma abwaan baa waxaan ka hadlaynaa waa taas abwaannimada taytalkeeda anigu ma bixin karo qof dadweynaha bixiya ninkii la siyaana waa abwaan oo xikmad iyo caqli iyo aqoon loogu tegay dee ninka yaaba u diidi kara waaba la siiyeyba wuu haystaa waxa weeyaan hal abuurnimo hadduu ku darsada de waa abwaan gabyaa ah wey laakiin waxaan ka hadlaynaa macnaha originkiisa asalkiisa waxaan nidhi qasab maaha abwaanku inuu hal abuur noqdo imisa abwaan oo hal abuur aan ahayn baa noo joogta malaayiin baa noo joogta ninka intuu gabay tiriyey waxaan diidaynaa qof kasta oo gabay tiriya ama jiifto tiri ama maaso tiri ama hees alifa maratoonka marka la ordaayo dadkoo dhan kulligiis ma kuniis waxaan dhahnaa maratoonka orda mid baa 100 ka orda mid baa 10 kun orda kulligood gool medal bay helaan dahabi way keeni karaan Soomaa mid waliba halkiisu sharaf ku leeyahay halkiisi hal uu qadariyo oo markaasna abwaanadeeni ha noo noqdaan meel lagu higto oo la hirsado tayta haddii kale waa isku macna guuraysa waxay noqonaysaa baabax bay noqonaysaa inta ka hadlayna pointiga ka hadlayna aan wax qualified aan kala saarno way maaha in dad wax laga sheegay ama wax laga aad baa mahadsantahay cabdulla aad baa mahadsantahay saaxiib yaal idinkana aad ayaa mahadsantahay saaxiibka isoo wacay iyo saaxiibada kale ee nasiibka u yeelan waaya barnaamijka in aan khadka usii furno saaxiib yaal barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa intaan isku soo noqon doono isbuucyada dambe haddii ilaahay idmo cabdullahi barnaamijyo kale ayaan idinka samayn doonaa haddii ilaahay idmo oo aan idiin soo gudbin doona haddii ilaahay idmo waxaana idin ballan qaadaynaa in aan wax badan oo dalka Soomaaliya haybad iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa kor soo qaaday aan idin soo bandhigi doono haddii rabbi ka raali noqdo barnaamijka waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Cali Aar Cabdi Maxamed Axmed waxaa farsamada quruxda badan kaamirada isbedbedelaysa gacaniga siinayay saaxiibkay Cabdullaahi iyo Farna waxaa dhinaca farsamada noo fadhiyay injineer Fadaya inta aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh